السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسر دواد عشر كني أفراد برشاد علمي ASP .NET Core إننا قسمنا Godey Madrasah portal. هذا ينشغل وبدنا يتبلعبنا وهنقدر إن controller لهذا teachers, controller لهذا subject, controller لهذا students. So what I mean by that is that go teachers عشركم واسقو لا دمي oo fuula ماشي wax lagaga dareeyay ayaynu tagi doonaa insha Allah ta'ala marka hadda xukuma jiraan waa cidlo soo aragtaan. The first thing you need to do inshallah controller ka right click folder ka leeyahay controllers ayaa right click ku sameynaysaa add baa leedahay add control baa leedahay then empty control baa ku dhufanaysaa add baa leedahay then marka aad dhahdid magac waxa uu bixinaysaa teacher esmalaya teacher ana la soconaysaa insha Allah teacher baa bixinaysaan and then you say add marka aad dhahdo halkan uu soo furanaysaa teacher controller namespace hore calaamada mustache ka public class teacher oo inheritance ku sameeyay controller kan oo base ka iyo halkan waxa ku jira public I action result index return view intaas ka tirtir intaas I action result index kaasi tirtir marka waa inuu noqdo qowsinka teacher-ka iyo labada qowsin oo hooseyso oo midna uu yahay class-ka midna uu yahay namespace-ka that's it inta inuu ku noqdo waa inta kala cilana ku noqoto because wax walba from the scratch ayaan kusoo bilaabana. Step 1, let's go back to our blueprint. We add teacher controller which we did, connect to the DB contacts ku xir database-ka DB contacts da xustaan cashirka u horeeyay kow moralkeena waxaan ku haysanaa class leader DB contacts oo inoo qaabilsan inuu ku xidhmo database-keena school database oo ardaydii iyo macallimiintii iyo inuu ogolaan inaan halkaa ka aragno waxna ku daro waxna ka jiro so ka inaan ku xidhna way so step 1 waxa waaye inaan sameyno so how to do that waxaad sameynaysaa this one you're going to do public CTOR wala tab CTOR waxa la constructor-ku waa wax ku ogolaanayo in aad waa method caadi ah wuxuuna qaataa class-ka magaciisa wuxuuna ku ogolaanayaa marka uu control ku load gareysmo ee soo daarmo ee horeeyay application-ka afurto in uu database ku xidhmo diyaarna kaaga dhigo macallimiintii so halka dhaxda ayaa waxaad gelinaysaa school DB contacts and then waad ka durkaysaa waxaad leedahay DB oo fadhiyar kan hadduu kaa saarmo calaamad cas macnaheedu waxaa weeye meeshan kore ayaadan moral ku haysanin this guy haddii aan ka tirtiro calaamadda reer bay iga noqonaysaa so click here and say use moral ku dhufo and then intaa markuu ku samaysmo meeshan kan hadda aan joogo ka koreysa right above here ayaa waxaad leedahay private read only school database underscore DB and then halkan hoose waxaa leedahay underscore DB equals DB intaas sameynaysaa intan hadda aan sameeyey macnaheedu haddaan yar sharaxaa weeye constructor database DB context aad kusoo xiran then markaad database kusoo xiranta ee connection string-gii aad diyaar ka dhigtid halka ay dhig database-ku diyaarsan DB context wuu ku garanayaa inuu ku xidhmo wuxuu ku garanayaa laba shay kow starter file-ka haddaan tagno waa kan waxaan idhi server add SQL use SQL server school database adoo isticmaalay connection string la dhaho database connection string wuxuu ku jiraa app setting-keena if we go to app settings waa kan database connection string database connection and this is the madrasadii aan sameynay iyo magaceedii so starter file-ka ayaa markuu application soo daarmo shaqadiisa waxay tahay in uu connection string ku dhex jiro app setting-ka ku xidhmo SQL server-keena then uu macluumaadkii diyaar siiyo DB contacts and then constructor-keena ayaa wuxuu isticmaalayaa DB contacts-gaas lagu soo xiray halkan ayuu noo soo dhigayaa ka bacdina diyaar ayuu noo tahay inaan class-yadii ku daro so anigu marka waan diyaariyey so I'm just gonna back idinku daysta waxba ha tirtirina I'm just gonna back a little bit laakiin sidan uu yahay idinkan waxaa idinku tusayay isku same way so daa markaad samaysid waxaad ku dartaa hostiisa intaad ka tagto oo mustache-ka u horeeya dambe aad habdeed dhowr jeer
then waxaad ku dartaa this public I action result all teachers ku dar calaamadda bisha afur and then calaamadan mustaashka afur laba xabo dhexda ka gal waxaad qortaa var oo variable ah show all teachers equals underscore db waa kii hadda aad soo samaysay constructor waa database-kii oo diyaar ku ah korka kuu fadhiya teachers haddaan data fiiri teacherka ay soo baxaya subjectigii studentigii minaha this db context injection ama constructor injectionka waa important because database-kaada kuma xidhmi kartid haddaanan waxa samaynin then waxaad leedahay macallimiinta oo dhan ayaan rabaa inaan arko oo page-ka hore ka arko macallimiintaas waxaad kusoo dartaa ardaydooda because arday bay leeyihiin macallin kasta arday buu u dhigaa ardaydana ku dar include ereygan include haddii aadan haysanin this entity framework haddaadan haysanin error baa kaa fuulaya waxyaalaan sugo calaamadda errorka kaa fuulaysa so if you click on it and then calaamadii casaanka aad ku dhufatid use adaad ku dhuftid entity framework core then wuu kaa tirtirayaa and then to list ay leedahay ardadii halkan ay soo fadhiisay macallimiinta halkan ay soo fadhiisanayaan iyo ardaydoodii la session macallin iyo 4 arday then waxaad leedahay return viewga aad oo macallimiintii u dir haddii 3 haayeen iyo haddii 4 haayeenba si aan u arko on page-ka hore ay usoo fadhiistaan macallin kasta iyo ardada u dhigantayeen then intaa markaa samaysto waa inaan page ku darro waa inaan page-kii isaga ahaa aan ku darro macnaha qaabka ay u shaqeeyaan waxaa weeye control-ka samee action-kii ama page-kii qaabilsanaa control-ka logic-ga ee database-ka wax macluumaadka keenaya samee ka bacdina ku dar front end-gii so front end-giisa aan ugu darro all teachers page-kan method-kan right-click dheh waxaad dhahaysaa add view midka view-gaada ku dar view-gana isku magac ayuu lahaanaya all teachers view buu noqonayaa then markaa ku dartid waxaad tegaysaa halkan uu kuusoo fadhiisanaya automatically sidan oo kale ayuu kuu noqonayaa halkan h1 iyo waxbaa ku jira marka u horeysa so don't worry about that then now you need to show the table so viewgan ama all teacher-kan muxuu sugayaa waxa uu sugaya maxay tahay wuxuu sugayaa data ka imaanayo teacherska oo ah all teachers if you all teachers haddaad dul tagtid fiir wuxuu ku leeyahay waa list of teachers buu ku leeyahay waa list of teacher you see that marka it's very simple halkaa waxaa step kuwaad moralka markaa samaynaysa front endiga so at moral waa ku daraysaa at moral list of teachers that's step 1 now step 2 since you have a list of teachers waa inaad samayso diffka waxaa siinaysaa container border info now inside the diff waxaan ku sameynaya h3 aan siinay bootstrap welcome to all teachers page hr oo ah horizontal line ayaan gelinayaa then inside there paragraph ayaan sameynayaa p-da dhexdiisa ayaan waxaan gelinayaa action result action resultigani anchor tagani minaha waa marka lagu dhufta dhow create buttonkii yaraa in ku dhufanayo way create if I save hadda intan if I save and I refresh waxaa meesha ku qoray anon wax kala samaynba let's see what happened should work hopefully see that now button baa isoo galay you're welcome to all teachers wax kala ma jiro hadda nothing now I'm gonna have to create a table so table-kii xageen sameeyaa right here diffkan u hoosay programka dhexdooda ayaad ku sameynaysaa diff table baad dhahaysaa and then tab so usually this is what you do table tab isaga kuu samaysmaya automatically see that so table markaad samaysid waxaad sameynaysaa class la yidhaahdo table kaasaad siinaysaa tr-ka u horeeya waxaad sameynaysaa t headlight baad siinaysaa ama table headlight and then you say id first name last name table data waan kasoo hadalay kuwan waxa ku sharax mayno so hal tr-ka u horeeya intaas kale that's one tr waxaa ku dhex jira 1 2 3 4 5 6 7 8 9 I think dana khaldayn waxaa ku table data ku dhex jira midka u hooseysa waa empty magac ma laha waxba gelinin and then tr-ka closingkiisa hoostiisa ayaad at sign leedahay at sign-ka waa razor syntax that means waxaad qoraysaa c# now for each var teacher in moralka muxuu yahay waa kii kor kusoo samaysay right there minaheeda waa list of hadaad dul tagtay list of teachers way marka macallimiintan badan macallin kastaay okay hal tr ayaad dhexdiisa ku sameynaysaa calaamadna qowsiinkaad furaysaa teeda hoosena wataas la socoyaa marka for each loopku saas ay u ekaanaysaa it's gonna be like that
so inside kiisa marka tr ku sameynaysaa, and tr kuna is going to be like that. So tr kaas yarka ah, and then tr kaas ayaad 8 ama 9 td baad ku sameynaysaa 1 2 3, and then mid kasta waxaad gelinaysaa add teacher, teacher id, teacher first name. waa inay isla lahaadaan kuwan kore iyo kuwan hadda kuwan id wakaas waa ciwaankii iyo wixii hoos dhigay first name last name. haddaa isdul mariso oo kan id-ga xagga soo mariso first name-ka korkaa kore id buu leeyahay laakiin first name buu tusayaa markuu istaan marayaan. and then midka u hooseysa td-ga u hooseysa ee xagga cidlada ka ahaa ayaa waxaad gelinaysaa laba action result, btn baad ka dhigaysaa kalaasadooda oo bootstrap, and then edit teacher iyo delete teacher baa kala siinaysaa, asp route id add teacher id baa siinaysaa, and then edit baa midka hore ka dhigaysaa, ka dambana waxaad ka dhigaysaa all the way down delete. laakiin deletedan horteeda oo weli waxaad ku dhex jirtaa la soco calaamadii aad soo furtay baad ku dhex jirtaa manaha closingkii anchor tag yaad ka hoya weli aad ku dhex jirtaa. so waxaad leedahay on click equal return confirm are you sure you want to delete this teacher, and then ku xidh. intaa way isla socotaa, waa hal shay. okay, so let's save that, and I think that's pretty much it. I think we're done. So save that on this one, and then let me refresh and see what happened. okay, aniga macallimiin hore igu jirtay oon tijaabinayay, so I'm just gonna delete midka koowaad calaamadan ku tusayay on clickty right here, midan aan ku dhahayay mid hoose delete are you sure you want to delete that javascript. waxa uu sameynaya waa kan markaan ku dhufto delete, see that, are you sure you want to delete this. buttonkan add button lama arko sida kuwan oo kale ma cadda, so let's fix that. marka korkaa kore tag meesha u koreysay ku qoran tahay teacher, create teacher, btn dash waxaan ka dhigayaa success. btn success ka dhig. okay, and then let's refresh it. aanu green in noqdo halkaas. there you go. so now the button la arki karaa. so calaamadahan hoverkan iyo waxaa wato tablekan, table border, table hover, table responsive, kuwana wato. so cashirka kani waa cashir ka kooban buu ahaa, marka intaasan ku koobaynaa insha allahu tacaala. inuu si dheeraada ma rabno. again sharaxaadan aan soo koobayo waxaa keenaya cashirkani galaaskan ku qaadanay, idinkaana codsaday inaan yaryareeyo oon codekuna ay intusi si aad u raacdaan. so I hope this will help you insha allahu tacaala. waxa kan waa easy, waa javascript, waa html iyo bootstrap hore usoo aragtay, so waxaa ku wareerin video istaaji meesha aad garan weydo, and markaa istaajitan qor insha allahu tacaala. tartiibi lineka dheer oo dhan waan idinku celinayaa, inta kale waa arki kartaa, laakiin linemanka yar dheer oo kale I will try my best inaan idin tuso insha allahu tacaala. asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.